horta marka hore aad baan kuu salaamayaa adiga iyo inta TV-ga ku xidhanba dareenkaygu wax la qiyaasi kara maaha sababta waxa weeyaan aad iyo aad baan u faraxsanahay in mataqaanaa filimku halkan soo gaadhay shaneemooyinkan Norwayna uu imanayo 19 bishan haddii Ilaahay yiraahdo oo meelo badan wadanka laga daawan doono markaas waxa weyn shucuurteeda ma qeexi karo in hadal kooban kuma soo mataqaanaa koobi karo laakiin aad baan u faraxsanahay filimkan wuxuu noqonayaa filimkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee taariikhda Norway shaneemooyinka lagu soo bandhigo si official ah talaftirkeeda maxay ku siinaysaa micno nooca maxay micno ku leedahay adiga micno waxa ay leedahay in la qiimeynayo ama aad loo jecel yahay sheekooyinka ama qisooyinka Soomaalida isla markaana af Soomaaliga ku baxa marka waxaan rajaynayaa nacam waxay ka dhigan tahay taas in dadku ay aad u soo dhaweeyeen qisa Soomaaliya oo Soomaali ay sameysay af Soomaalina lagu sameeyay waxa ka turjumaysaa in iminkay wixii ka dambeeyana diyaar loo yahay in la soo dhaweeyo kuwa dambe soo bixi doona haddii Ilaahay yiraahdo dadka imaaday oo daawaday waxa u badan yihiin dadka ku koray qurbaha xiriir toos ah oo la leeyahay Soomaaliya ama dhulka Soomaaliya degan luqad ahaan iyo dhaqan ahaanba misleedahay in dhaqanka Soomaalida la xiiseeyo filimkaagan wax badan buu ku soo filimkan wax badan buu ku tari karaa dabcan sababta waxa weeyaan markii hore markaan filimka sameynayna xataa markii dakhli gelinta markaan u raadinaynay wax weyn dadka badankoodu maal galiyayna aaminsaneen in filim luqadda Soomaaliga ku baxaya oo Soomaali sameysay Soomaalina matalayso inuu adduunweynaha ku faafi doono oo meel sare ka gaari doono mayna aaminsaneen laakiin filimkan hadda ayaa mataqaanaa taabeeniyay marka maxay dhalinyarta aan mataqaanaa halkan ku dhalatay ku kortina waxa weyn waxay dareemayaan in maxay ahayday guul ama farxad bay dareemayaan sababtoo ah waxay arkayaan in si ka duwan sidii mataqaanaa lagu yaqaan ama lagu soo bandhigi jiray Soomaali in lagu soo bandhigayo marka waxa waa proud bay ku yihiin laftooda ugu dambeyn dad badan baa laga yaabaa filimka maqleen laakiin aan daawan haddaad ku soo koobi karto 3 eray filimka qofka aan daawan u sheekadaan ku dhilaa maanta maxaa ugu soo koobi lahayd waxaan soo koobi lahaa filimka soo daawada waa filim Soomaaliya qisa Soomaaliya lagu sameeyay af Soomaali lagu hadlayo hooyooyinka soo kaxay idoo soo kaxay dariska soo kaxay asxaabta soo kaxay qof walba soo kaxay daawadaan aad wad maasanta ku soo dhaw Norway adaa mudan walaal aad baa maasanta